بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa wax yar inaan ka sheegno wacdi iyo waano iyo warbixin yar oo kooban xanuunkan la yiraahdo coronavirus ee hadda adduunka wareeriyey. waxaan rabaa marka 5 qodob inaan ka hadlo. qodobka koobaad wax yar oo warbixin ama hordhac yar oo xanuunkan ku saabsan. waxaan kaloo ka hadli doonaa insha Allah tacaala hadduu Ilaahay yiraahdo xanuunka dhakhaatiirta iyo dadka adduunka hadda jooga waan aragnay waxay sheegeen maxaan ku dari karaa oon inta ahayn. qodobka saddexaad dhimashada iyo noloshaba Allah keena. qodobka afraad xanuunka saan oo kala ah hadduu dhaco maxay dadka bini aadamka ah la gudboon inay sameeyaan. horta xanuunkan la yiraahdo coronavirus maanta aan hadlayno waxaa la yiri dad aad u badan baa u dhintay 118,000 oo qof buu ilaa hadda ku dhacay sida warbixinada ugu dambeeyay ay sheegayaan. ilaa 4,000 oo qofna waa u dhinteen. waa sida officialka ee la faafiyey. xanuunkan saad ogtihiin bishii 12 sanadkii 2019 ayuu wuxuu ka soo bilowday wadanka Shiinaha buu ka soo bilowday wuuna faafay hadda saad u jeedaan. hadda maantadan aan idin la hadlayo magaalooyin badan oo Mareykan ka mid ah ayuu ku faafay oo ay ka mid tahay Seattle, Washington, magaaladan hadda joogno Minneapolis ama Minnesota state-ka ilaa hadda waxaa laga helay 5 qof baa laga helay. ilaa maanta jaamacadda ugu weyneed Minnesota ay galaasyadii fasaxday oo la online ma ahana lama iman karo. xanuun yar oo maanta la leeyahay indhuhu ma arki karaan oo xubnaha unugyada bini aadamka iyo dhiigga qaadaya ayaa wuxuu gaarayaa qofka inuu dilo oo aan la garanaynin sababka keenaya ilaa hadda aad ogtihiin. waxaan dhihi lahaa marka inaan ku baraarugno awoodda Ilaahay ee rabbaaniga ah inta ay la eg tahay marka loo fiiriyo awoodda bini aadamka. masalada labaad oo aan rabo inaan idin la wadaago waxa weeye markay masaa'ibtan oo kala dhacaan Allah tabaaraka wa tacaala waxaa la rabaa oo uu nagu baraarujinayaa oo la rabaa inaan fahanno in addoommada la rabo inay Allah u laabtaan tabaaraka wa tacaala oo ay ka laabtaan waxyaabaha ay ku jiraan. Allah wuxuu leeyahay wamaa nursilu bil aayaati ilaa takhwiifa. aayadaha waxaan u soo diraa iyo mucjisooyinka awoodeenna tusaya inaan dadka ku cabsi gelinno oo ay ku waana qaataan. mas'alada kale oo u baahan inaan fahanno waxa weeye alle ayaa abuura dhimashada iyo noloshaba. alle wuxuu leeyahay tabaaraka alladii biyadihi almulku wa huwa calaa kulli shayin qadiir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. marka haddaan nahay muslimiin haddaan nahay waxaa la rabaa inaan ku baraarugno oon fahanno geerida iyo noloshaba Allah abuuray. qof aan Allah u qorin ma dhinto, qof aan Allah u qorinna ma noolaado. bini aadamka dhanna waxaa la rabaa masalada inay fahmaan. masalada kale oo loo baahan yahay inaan fahanno waxa weeye waxyaabaha cudurrada waaweyn ee saan oo kale ah markay adduunka ka dhacayaan sababka ugu weyn oo keena waa bini aadamka ficilkiisa iyo dunuubtiisa natiijo ka dhalatay. maanta waxa adduunka jiro dulmi iyo xadgudub iyo kufsad iyo zino iyo liwaad iyo xaaraan iyo ribo iyo dad masaakiin oo la gumaysanayo oo lagu dilayo kelimada tawxiidka ku dhawaaqeen. natiijadeedu waxay noqonaysaa sidii Allah uu sheegay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد كيبا كظاهري أدونك برقة يبدوا دادك وحي كسبدين وي اللي دادك أبوري بعدها هي الله قف مد ka aqoon badanna ma jiro
mid alla ka aqoon badan oo bini aadam ah oo qof bini aadam ah ma jiro allihii abuuray baa saas dhahaya ilaahayna dadka wuxuu ugu talagalay inay kuwaana qaataan waxyaabahan oo kale u laabtaan mas'alada kale oo aan rabo inaan ishaaro waxa weeye daacuunka iyo xanuunada saan oo kale ah ee awoodda bini aadamka ka baxsan dhinac waa ciqaab iyo canaan alla uu ku canaananayo oo uu ku ciqaabayo dadka xadgudubka iyo dulmiga iyo dembiga iyo macsiyada ku jira dhinacna waa raxmad iyo naxariis qofkii ku dhinta asagoo sabraya oo og inuu ilaahay yahay midka wax dilo waxna nooleeya oo sabab uu u noqdo cudurkanina suu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa shahiid waana ahlu janno Aisha radiyallahu anha ayaa nabiga waxay weydiisay sida imaam bukhari ku sugan rasuulka ilaahay waxay tahay sa'altu nabiga sallallahu alayhi wasallam aan taa'un nabigan taa'unka weydiiyay taa'unku waa calool shubanka waa xanuunada saan oo kala ah oo aan la garanaynin wax yihiin oo qofka intuu ku dhaco oo uu shubmo oo uu miirmo uu dhimanayo fa akhbaraha annahu cadaabun wuxuu sheegay inuu yahay cadaab ilaahay uu ku soo diro qofku rabo wuxuu kaloo sheegay ilaahay inuu ka dhigay naxariis markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qof ma jiro daacuunku uu ku dhacay oo haddana sabray oo ajir raadsaday oo og waxa ku dhacay uun inay yihiin wax alla u qoray ilaa wuxuu leeyahay ajir qof shahiid oo kale wuxuu kaloo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiid kale oo imaamu nasaa'i axmed iyo awriyan keyrkood abu hurayra xadiidkiisii ما تعدون الشهيد فيكم محاد كترسان محاد أتقانان قفك شهيدك سيادو حسابسان وحيدها رسولك إلهي وأمدك كل انتي دقالك كل انتي وحيدها وحنقنا قانا من قتل في سبيل الله قفك جدك إلهي اللي قد لي فهو شهيد نبي صلى الله عليه وسلم هدبا دتك الشهداء ومضى يدو ويريهن وحنبي صلى الله عليه وسلم وحيدها ياوي وحنبي صلى الله عليه وسلم مدك جدك إلهي اللي قد لي وشهيد midka asagoo jidka ilaah ku sugan dhintay oo ku socda waa shahiid midka daacuunku dilay ee u dhintay waa shahiid midka u dhintay calool xanuunka waa shahiid calool xanuunka waxaa soo gelaya wax kasta oo cudur ah oo qarsoon oo uurjirka qofka ku dhaca ama ha noqdo kansar ama ha noqdo daacuun ama ha noqdo shuban kale ama ha noqdo keliyo ama ha noqdo beer ama ha noqdo wax gudaha qofka ku dhaca ama ha noqdo coronavirus ka hadda aad u jeedaan oo kale wax kasta oo qofka uu ku jirtiisa intuu ku dhaco qofka bini aadamka si degdeg ku dila waa shahiid buu nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkaas waa ahlu janno maxaan halkaas ka aragnay in qofka ku dhintay asagoo sabraya oo alla yaqaana uu yahay qof shahiid oo ajir la oo jannada galaya sababta waa awood ka baxsan weeye oo bani aadanimada ka weyn mas'alada kale oo rabo maanta inaan ka hadlo waana mas'alada muhiimka ah haddii magaalada aan joogno ilaahay ma nagu keeno bilaadeenna iyo dhulkeenna iyo magaalooyinka aan deganahay iyo guryaheenna iyo awlaadeenna iyo ehelkeenna iyo mujtamaceennana allaha nabadgeliye hadduu ku dhaco xanuunkani maxaana la gudboon inaan samayno oo aan ku tallaabsan karaa waxaan halkan idinku diyaariyey sida arki doontaan insha allahu tacaala waraaq ama flyer ka hadlaysa waa broshuur ka hadlaya steebyada la marayo oo qofka la rabo inuu ku dadaalo oo dhan waana la daabici doonaa insha allahu tacaala mar dhow isagoo koobi ah yuu heli doonaa qof walba oo awood u leh inuu helo waxaana la gudboon marka koobaad haddii xanuunkani uu ku dhaco meel aan joogno in aan ogaano awoodda ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo qofkii alle uu huwiyo daryeelkiisa iyo naxariistiisa qof kala hoos bixi kara iyo cudur kala hoos bixi kara inuusan midna jirin sidii nabiga saalixa oo nabi ilaahi yacquub uu yiri fallahu khayrun xaafidan wa huwa arhamur rahimin allah asaga mid wax xifdiya ugu khayr badan oo ugu wanaagsan asagaana mid kastoo naxariista ka wanaagsan inaan marka qalbiga ku qabowsano oo qalbiga aan ku dejisano oo aan ku sheekaysano oo aan dadkeena ka dhaadhicino fallahu khayrun xaafidan wa huwa arhamur rahimin inaan ogaano qul lan yusiibana illa ma kataba lahu lana wixii ilaahay noo qoray maana wax kale inay nagu dhacaynin oo aan ku kalsoonaano oo niyadeenu ay ku degto oo qanaaco ay ku qaado oo qalbigeenu u dego midda saddexaad
ومد أن بني آدم كان ألسمنا هاي لربنا إن إنه وجهه رينو أو كجد البدنانو أو أسبابته هي سببها بني آدم كمان تأجاري إن خاطرته أي كنا سيحيين وإن قاضنا وحكسته أو دخاطرته ما أنت أي كنا سيحيين يددك عافماك كنت تخصصي وحنون كان أن كيفوق عن كرو أو أن اسكت دريالي كرو أو أن فافتان كيس كويرين كرنا وإن قاضنا oo dadkeena aan ugu naseexayno oo jaaliyadeena aan ku dhaxfaafino oo masaajideena aan ku dhaxfaafino oo guryaheena aan ku dhaxfaafino oo dadkeena aan ku baraarujino oo aan ku wacyi gelino mas'alada kale oo ay inagoo midda dadka ula siman oo qofka muslimku dadka kale la dheer yahay waxa la rabaa in aan caruurteena iyo inaga nafteena iyo guryaheena iyo ehelkeena aan ku xifdino oo aan ku ilaalino adkaarta ducooyinka quraan akhriska waxyaabaha khaasatan daliiladu ku soo arooreen oo la yiri qofkii saa sameeya waa la ilaaliyaa qofkii saa sameeya musiiba kuma dhacdo waxaan maanta idin sheegayaa ilaa dhowr aayadood oo quraan ah iyo dhowr duco oo biidni illaahi tacaala qofkii akhrista balaayo oo dhan iyo musiibo oo dhan alla uu ka xijaabayo sida xadiistaas iyo aayadahaasi nusuus cadcad ay sheegayso waxaa ka mid ah subixii iyo galabkii inaan akhrisanno aayad kursida qul huwa allaahu axad qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas waa magangelyooyin qofkana way ilaalisaa 3 mar subixii iyo 3 mar galabkii inaan akhrisano oo awlaadeena aanu akhrino waxa kale kamida nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis imaam muslim uu wariyay ayuu wuxuu leeyahay qofkii meel dega bal ducadan u fiirsada qofkii meel dega oo yiraahdo a'uudhu bi kalimaati llahi taammaati min sharri ma khalaq waxaan ka magan galay kelimadaha alle ee dhammayska tiran wuxuu abuuray sharteeda wax kasta oo shar leh jin insi gaal muslim cadow saaxiib shisheeye ehel cudur wax kasta oo dhib leh coronavirus xanuun kale oo dhaca AIDS waxaan la yiraahdaa TB bahashi maxaan ku dhahaa cancer wax kasta oo shar leh shartiisa baan alla ka magan galay waa cajiib ay ducadaas waxa kale nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam xadiis Abu Daawud iyo Tirmidhi iyo geyrka ay wariyeen nabiga inuu sallallahu alayhi wasallam qofkii dhaha bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim qofkii dhaha bismillahi alladhi la yadurru مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قفكي صدح جيرها مركو قلبيستو قلبكي مصيبة كما دعضو إلى كوابريستو قفكي صبحي دهنا صدح مر إلى كقلبيستو مصيبة كما دعضو وعجيب يدو عداس أنو فيرسنو أن عرورتي أنو كو أخرنو أن إنو أخرسنو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وحان كلا الدعاء وقدم بيستان إذا حسوسيني وحوي نبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود يغير كأوليين بوحليه اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام إلهي وحان كاما قنقلي برسك إيا والدة إيا جوذانك إيا عذر هذا حن أو دن عذر كستو أو حن إلهي كما قنقل دعاء أنا أخرسو ولا مسلم كا يا ولاش مسلم كأهي أن أخرسنا الصبح يا قلب كيبا مركان غيرانو أذكارت الصبح يا أذكارت قلبك يا أذكارت هردada lagu seexdo iyo midda guriga looga baxo markaan akhrisano si khaas aan u ogaano aayadahaas aan idin sheegay iyo axaadiistan aan idin sheegay hadaad awoodid subax alla keena inaad sadaqa baxsato qof sadaqa baxsada musiibo kuma dhacdo ku dadaal waxaan ku soo gabagabeynayaa mowduucan inaan dadkeena u sameeyno baraarujin iyo wacyigelin ah xanuunkan in qofku
uu isku ilaaliyo si uusa xanuunkaasi ugu dhicin adkaarta ilaahay iyo kalsoonida alle iyo magangelyada alle markaa kadibna uu qaata asbaabta bini aadamka ilaahay u sahlay ee fadliga ilaahay uu ilaahay fahansiiyey maanta bini aadamka oo dadka kale aan ula sinaano waxaan markaa rajaynayaa inaan laba kaadh wadanno mid aan dadka ula simannahay iyo mid aan khaas la nahay oo iimaankeena iyo islaamnimadeedu ay nagu hanuunisay baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ilaahay waxaan ka baryaa inuu na xifdiyo innaga oo dhan iyo awlaadeenna iyo ehelkeenna iyo guryaheenna iyo beledyada aan degannahay iyo maraakisteenna iyo meel kastoo aan joognaba ilaahay inuu nagu ammaansado oo ilaahay uu balaayada oo dhan na gees mariyo baan ilaahay ka baryayaa baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh